so inta marka lidinku bahadili lahaa dalan dalkiina ahayn baddaa ku dhiman lahaydeen kalluunka idin cuni lahaa xaaska idinka dhergi lahaa qawga ku dhiman lahaydeen biyahaas cusbada ku rafaadi lahaydeen waxaa idin dhihi lahaa isku leexda caqliga dib ha loo shaqaysiiyo dalka fursado badanaa ka banaan amni daradana adinkaa la dagaalami karo hadda 3 kun oo dhalinyaraha haddii 2 kun ay digto shabeellaha dhexe kunna ay digto shabeellaha hoose beere aad ka tacbataan aad xoolo aad duxaysaan oo beerihii aad tacbataan oo you know 100 mashruuca jirta aad maalgashataan oo isku leexatiin dawladdan hadda jirtana waa iska magacuyaal markaa meelaha qaarkood aan fiirsho maxaa yeelay way ku dhiiran weysaa hadda dhalinyarada xataa haddii la dhihi lahaa waryaal lacag haysto 6 kun ma haysataa haa kaalay 10 kun aan kugu daraynaa shaqayso dhiirigelinay waana dadka waa joogi lahaayeen cadowgana waa iska difaaci lahaayeen marka dhalinyaradana loo ogolaado inay hubkooda ay qaataan cadow soo dhaafi lahaa male ma fahamteen marka waxaa yeeshiin dhalinyaroy isku tashta baaritrigeena intaanu ku ogyahay kan haddii aad rabtiin muuqaalkan inuu sii socdo oo aad rabtiin inaan idinla wadaago waxyaabaha aad muxuu ahay qaban kartiin ama aad ka shaqaysan kartiin oo dalka gudihiisa aad wax soo saar fiican ugu samaysan kartiin oo lacag aad ka helaysaan idinkan aad ku qancaysiin waxaad commentiga iigu soo qora kasoo hadal waa idinla wadaagayaa wax aan maskaxdiina gelaynin waxtar badana idin leh tan iyo intaan dib kulmi doono nabadiino